السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما خيرتها ومحسنتين مرة لبوا جوكتان مجاعونا وبشار دول وحربينا كهضله سيدي هرياني وشيء حالة السوداني وحيابها ما أنت أو جمعها كعصبون هذه كدي مركية جعنتها أي كل جن من الترية دالكاسي السودان البشير نحلك لا يقاضي لو مد أيان كهر مريضنا نك حلك لوريجي عوض ابن عوف محيي هي waxaan kaloo ka hadli doonaa Suudaan qaabka ay wax u dhaceen koow xaaladda Suudaan dabcan sidii la maleynayay ma aysan noqonin dhibaato ma aysan ka dhicin laakiin haddana mudaharaadka iyo dadka shacabka ah banaanbaxooda waa uu sii socdaa xalay ilaa iyo maanta banaanka ay joogaan waxa ayna doonayaan waxa weeye oo ay sheeganayaan in militariga aysan iyagu ay matali karin shacabka isla markaasna loo baahan yahay xukuumad midaysan oo shacabka maamusha shacabka arintooda halkaas ay maraysaa militarigana waxa uu go'aamiyay ama uu soo saaray in 2 sano si ku meel gaar ah ay gacanta u haynayaan talada wadanka ay gacanta ku haynayaan kadibna doorasho loo direeri doono hadalkaasi waa hadalkii ka soo baxay militariga waxa inta xiga axzaabta mucaaradka way wada hadleen badankood waxa ay sheegeen in militariga isan shacabka Suudaan aysan ka haysanin kalsooni dhameystiran aysan xasilooni ku helaynin shacabka sidoo kale waxay sheegeen qaar ka mid ah axzaabta mucaaradka in astaamihii iyo nidaamkii madaxweyne al-Bashir dawladdiisa dhammaan meesha laga saaro xataa rumuustii iyo shacaraadkii iyo wixii lagu yaqaanay meesha laga tuuro isla markaasna xukunka talada loo dhiibo axzaabta mucaaradka iyo shacabka iyaguna ay soo dhisaan taladaasna waa ay meesha way ku jirtay intaasi haddii aan ka soo gudubno xaaladda Suudaan waxa la sugayaa wali xaaladdu ay kulushahay beesha caalamkana way ka hadashay dhamaantoodna waxa ay focuska ay saareen in xaaladda Suudaan kow amniga iyo nabadgelyada gacanta lagu dhigo kadibna la isku imaado wixii la qaban lahaa maadaama ay militariga gacanta ay ku dhigeen ninkan hogaaminaya militariga ee wasiirka difaaca ah muxuu yahay Ciwad ibn Auf wuxuu ka mid yahay ragga saaxiibada ay aadka ugu dhow madaxweyne al-Bashir waliba waxaan dhihi karnaa waa garabka midig ee madaxweyne al-Bashir Auf waxa uu ka soo shaqeeyay ama uu soo maray istikhbaaraadka ama laamaha ammaanka ciidamada militariga ee Suudaan sidoo kale wuxuu xil u ka soo qabtay inuu noqday naa'ibka ama ku-xigeenka ciidamada qalabka sida ee Suudaan kadib markii uu fariistay waxa uu noqday nin al-Bashir ka dhow talooyin far badan siiyay Auf waa ninka madaxweyne al-Bashir kula taliyay Suudaanta koonfureed in meesha laga saaro ay ka baxdo wuxuu kamid ahaa ragii soo gabagabeeyay dagaalkii al-Bashir 12 sano uu kula jiray kooxaha mucaaradka iyo jubbaba koonfurta Suudaan sidoo kale Auf waxa uu caan u ku yahay ama uu khibrad dheer u yahay dhanka amniga ah sidaas darteed al-Bashir hadii la waayay Auf dabcan wali waxa taagan nidaamkii madaxweyne Umar al-Bashir wadanka uu ku maamulayay taasina shacabka xalay waxay ka dhaheen waxaan u baahanahay in dhammaan militariga meesha laga saaro dawladda al-Bashirna meesha ay ka baxdo okay Auf maxaa laga filan karaa sida uu sheegay waxa uu soo dhisi doonaa dawlad militarigana wali gacanta ay wadanka ay ku sii hayna doonaan haddii aan ku laabano Auf waxyaabaha kale uu isagana uu ku caanbaxay waxa kamid ahaa dagaalkii Yemen wuxuu kamid ahaa ragii al-Bashir ku qanciyay ama go'aanka ku gaaray in xaaladda dalka Yemen si degdeg ah wax looga qabto isla markaasna la garab istaago taxalufkii iyo gaashaanbuurtii uu Sacuudiga uu hogaaminayay ee Carabka Sacuudi sidoo kale Auf waxa uu ka qayb qaatay 1989 madaxweyne al-Bashir afgembiga uu sameeyay wuxuu kamid ahaa ragga ugu dhawaa ee madaxweyne al-Bashir garab ku siinayay waxa uu ku soo caanbaxay ama uu noqday qof oo al-Bashir mar walba ku kala soon yahay talooyinka uu siinayay oo ahayd in al-Bashir uu wax bedel u sameeyo isagana xukunka uu sii joogo haddaba sheekadu maxay tahay inta markii aan ka soo gudubno hogaanka ninka qabtay Auf Ciwad bin Auf marka halka ugu soo gudubno madaxweyne al-Bashir xilka walaga qaaday talada wadankana military ayaa gacanta ku dhigay sheekadu waxay ahayd mid soo socotay madaxweyne al-Bashir 30 sano wadanka markuu maamulayay xaaladana dhowr jeer ay ku kacday wadamadii Carabeed ee dariska la ahaana ay iyaguna madaxdii ay noqdeen kuwa xilka laga tuuray qaarkoodna ay dhinteen madaxweyne al-Bashir walbahaarka ugu weyn ee hayay wuxuu ahaa wadankan sidee baa gacantaada qof kale ugu gulaysaa yaa qabsani doona waxa ugu weyn uu ka cabsanayna waxa ahayd maxkamadda caalamiga oo markaas doondoonayay haddaba madaxweyne al-Bashir taatikadan
qiraa'o fara badan iyo akhris fara badan markii aan sameeyey waxyaabahii aan ku arkay waxaa ka mid ahaa in albashiir fikraddan isaga uu ciyaaray isla markaasina cawf uu keenay sababtuna waxaa weeye waddanka markii uu ku dhawaaqay albashiir xaalad degdeg ah oo dowladdii oo dhan uu kala diray dadkii uu soo qaatay oo xil u dhiibay waxaa ka mid ahaa ninkan wuxuuna u magacaabay wasiirka difaaca ee waddanka wasiirka difaaca oo waddanka markaasi oo ahaa dadka ugu macquulsan ayuu ku aaminay waxayna taatikada ay soo bilaabatay ama sheekadan ah maalintii cawf xilka loo dhiibay wasiirka difaaca ayaa sheekadana soo bilaabatay ah albashiir inuu tartiib xafiiska uu baneeyo hadda madaxweyne albashiir waa xabsi guri taladii waddankiina waa laga qaaday waxa uu noqonayaa qof saalim ah oo nabadgelyo ah isla markaasna asxaabtiisii fikirka ikhwaanka aaminsan asxaabtiisii aaminsan militarinimada aaminsan ama adayga uu ku jiro reer galbeed naceebka ku jiro ayaa xilka waddanka haya isagana waxa uu noqonayaa nin ka agdhow isla markaasna si hoose talooyinka ku dhiibta haddii ay noqoto in militariga cadaadis beesha caalamka kula kulmo oo albashiir iyo lasoo hadal qaado dhibaatooyinka uu sameeyey waxaa suurtagal madaxweyne albashiir inuu aado riyaad sacuudiga inuu aado iyo inuu turkiga uu ku noolaado labada wadanna iyaguna waa u furan yihiin oo amni buuxa uu ku helayo laakiin muhiimadda ugu weyn hadda dalka xaaladda suudaan inay noqoto waa laba mid in militariga ay gacanta saa ugu dhigaan ay 2 sano ay qabsadeen markay dhameeyaanna kadibna sida caadiga ahayd ay waddanka ay sii ballaarsadaan oo ay sii maamulaan maadaama Suudaan tani markii xornimada ay qaadatay ilaa iyo maanta military iskaga dambeeyay oo xaalad military lagu soo jiray xaaladda labaad ee la dhihi karo Suudaan way gali kartaa waxa weeye shacabka in ay iska dhadhiciyaan iyo axsaabta mucaaradka xaaladdu inay hadda ay qoyin tahay isla markaasna mar labaad ay banaanka u soo baxaan shacabka iyagoo diidaya nidaamka militariga ama asxaabta albashiir inay xukunka ay ku fariistaan taasna bedelkeeda ay cadaadis militariga in la saaro iyaguna ay sameeyaan arintii Masar ka dhacdo kale tahriir oo kale ay militariga ay dabaabaadkooda lagu soo daadgurayo goobaha shacabka dhibaato shacabka iyo militariga halkaas ay sidaasi ay ku soo ifbaxdo beesha caalamkana markaasi caalamkana ay faragelin ay ku sameeyaan iyadana waa ay dhici kartaa laakiin xaaladda Suudaan dabcan sida muuqata hadda iyo taxliilaadka iyo falaqeynta ay sameeyaan dadka khibrada ah waxa weeye militariga inay gacanta iyaga ku dhigayaan kadibna falsafada iyo aqliga xarakada ikhwaan muslimiinta in lagu soo dhiso isla markaasna waddanka ay sii maamulaan cid walbo ay doonayaan in qanaco ay ka helaanna ay markaasi saaxiib ila noqdaan haddaba meesha waxaa ka baxaya albashiir dadkii uu saaxiibka la ahaa ee dibadda ah wadamada carbeed wadamada afrika qaar ka mid ah reer galbeedka laftigooda Iiraan Turkiga wadamadaas oo dhan wadamada saaxiibka u lahaaya meesha ka baxaya militariga marka siyaasadda cusub ayay daabici doonaan siyaasaddaasna waxay noqonaysaa madaxweyne albashiir inuu yiraahdo inta naqaata intana anaa ku fashilmay oo dhibaato iga soo gaartay ka taga militariga waxa lagu sugiyay waxa weeye in ay waddanka ay badbaadiyaan in ay waddanka uusan qallaaso ku dhicin taasna way u badan tahay haddana waa lama filaan in ay dhacdo qallaaso kale maadaama Suudaan waddan iqtisaadkiisa iyo dhaqaalihiisa uu ku filan yahay kaliya haddii la wanaajiyo inuu waddankaasi u wanaagsanaanayo intaasi oo qiraa'o yar aan ku soo sameeyay ayaan ku soo gabagabeynaya falaqeynta xaaladda Suudaan iyo waxyaabaha ka cusub wixii kale soo kordhana waa isla joognaa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin